aad agtiid ugu weyn runtii aad iyo aad maxaa leedahay wax badan u soo qabta dadka baahiyaha gaarka ah qaba kana dhex muuqday laakiin aan rabo maanta in aan soo bandhigno waxyaabaha uu gaarka leeyahay waxaa laga yaabaa inaad maanta aamintaan in qof arag la uusan waxba qaban karin shalay markaad aragteen qof arag la oo culimo ah haddana aad aragteen qof arag la oo fanaan ah maanta waxaan rabaa inaan idin baro qof arag la oo dhakhtar ah oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee maanta magaalada Muqdisho ka shaqeeyo runtiina 20 sano ugu dambeeyay waddanka burburka uu ku jiran magaalada Muqdisho ugu adeegayo bulshada ninkaas raba maanta inaan idin baro oo hadda ila fadhiya Ustaad Cabdiqaadir soo dhawow YouTube أحمد عبد الله حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد هذا كما سمعتي وأنا هاي يوتيوب كذا رنتي هذا فرح جليني ساعة لين ما أنت لين أرجلا هذا ما رتي شغلة أنت لعب طبعا أيوه ورنتي أجيتها فرحان هذه مارتي وين أحمد أنا كجمع علينا رسالة قادم وحارب أنا وكوديو سؤالي يعني صوت يحسني سؤال شكو هذا حيوان عيسى وحارب إن عددك أشياء بتاع القادر وقوما مجلس وجود تاريخي وقوبان من كأرجل أنت هذا كإيجا هذا ما سنتهي أحمد ولا لها قيمها بدن أو يوتيوب كداوانا ينوح عليه هاي سلام يا مركز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوحة لإيرة هذا عبد القادر محمد على السوق سجار دكتور سجار يا مارتي أنا كم عدير لدو يقالنا أرجل أنتنا وحن مارتي أرجل بيلي طلباتن iyo labadii ayaan maartay araga aan beelay wixii ka dambeeyana waxaan ahaa ruux arag la alxamdulillah ilaa mahadsan nuurkii indhaha uun baa maqan laakiin sida kale ma isli Cabdiqaadir ahaan waa arag la'dahay oo sababtoo ah inta dadka araga leh ama wax arkaya ay qabsadaan ayaan qabsadaa haddii maartay tahay adduunyo tacbasho hadday tahay maaragtay xaasiyaalasho hadday tahay hanti samaysi hadday tahay shaqo bulshada loo shaqeeyo intaba alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaa igu ilhaamiyey runtii iina kase niyaddayda aniga aan lahaayna maaragtay runtii ii sameeyey anoo yar ayaan isdhahay markaad arag la adahay adiga nin ha noqonin ruux dawarsado laakiin shaqo abuurida anoo yar aan sameeyey meelo badan ayaan soo maray inaan maaragtay fanaan noqdo oo heeso curiyo ama muusig garaaco inaan maaragtay quraanka inta bartay aan macallin dugsi ku noqdo kadibna inaan noqdo nin dhirta wax ku daaweeya quraanka kariimka iyo dhirta oo runtii aad iyo aad u ah wax dhib badan qof walbo hadda laga yaabo inuu fiirsanayo ama uu maqlayo uu isleeyahay qof arag la سو در وبران كرا أو مارتي كونه قرآن كنا جاي وإنه برتو أو حفظنا ما دوين كلو سكول كوا حفظين كريا أو بران كريا لكن درتان أو سكول درين ربطو سو أكل قرنا يسلو مارتي وبران أنا حلا يقول برا درت مركان أحسن قاضو إن ندميو إن أوريو يو إن تابتو تاوشلا أقول رئيس تاوشلا يقول برا كدبنا أورسال يقول برا كدبنا ندميز معنا جدا غير كذا وحيين kuwa isku taabasho eg mararka qaarkood isku caraf eg waxay ku kala baxayaan marka dhadhanka kuwaas oo kale marka midba si gooniya ayuu maaragtay yahay marka saas ayaan ku arag la'aantayda marka xilligaas ay soo bilaabatay mar walba waxaan u helanaa ama aan hilow u qabay dadka araga la 88 ayaan ka mid noqday jimciyadii nolosha Soomaaliyeed aan xubnahooda maaragtay runtii ka mid noqday si dadka araga la aan wax kula qaybsado ilaa hadda ugu dambeysana saas ayaan soo joogay ilaa nolosha aan ka gaaro gudoomiye naafadana aan ka gaaro gudoomiye ku-xigeen oo ururka naafada qaranka maaragtay gudoomiye ka soo noqdo marka alxamdulillah dadkan baahida gaar qaba waa dad ama hal uga la aadaan ama gacmo la aadaan ama indhal ama dhagaha la aadaan
meesha uu la yamaana inta kale oo dhan waa dad looga faa'iidaysan karo axmedow. aad u mahadsantahay doctor cabdiqaadir. waxaa kaloo rabaa inuu ku weydiiyo goorma soo bilaabay howlaha caafimaadka ee bulshada aad haysto dadku waxay isweydiinayaan xilliga uu soo bilaabay xilligaa soo bilawday inaad noo sheegtaa rabaa. aad aa mahadsan tahay. xilliga aan soo bilaabay horta waa 93 aan maaragtay anoon dhakhtar ahayn laakiin jecel xabsowdada iyo malabkii iska gadgado oo ganacsi uunka ayaan soo bilaabay. hal sano kadibna waxaan ii suurto gashay inaanba barto dhirtii oo xaas alla naxariistay hadda iga dhimatay ayaa maaragtay xanuunsatay oo dilan ku dhaco ilmaha ayaa kasoo halaabo uray markaas lahayd. markaasaan alxamdulilah waxaan u tegay nin dhirta ku daaweeyo aan u sheegay arrintii. wuxuu yidhi nin waa iqanci waayey waa ka tegay mid kale aan u tegay. midkii kale ayaa maaragtay iqanciyey oo yidhi cudurkaas waa cudur maaragtay dhiciskaas la joojin karo dhiigga kadibna ilmihii dib usoo laabanayaan haddii alla idmo. marka lacag markaas wuxuu iga qaaday 47,000 oo lacag Soomaaliya markaas oo aad u qiimo badnayd ayuu iga qaaday. marka daawadu ii sameeyey daawada markaan siiyey gabadhii hooyadii waa dhiigga joogsaday uurku waa weynaaday gabar ay ku dhashay. marka gabar ku dhashay ayaan shiiqu u tagay waxaan u jeedaa markaas macaan dugsiyan waxaan waa arag la ahay oo soo jeedid macaan dugsiyan waa ahay. marka maadaama hawshan lagu guuleystay waxaan rabaa inaan wax ibartida day suuragal ku tahay. ana markaas tawfiiqan diganahay asagoo meesha ugu sameeyaa bakaaraha waana la ogyahay 92-93 waa arrimo magaalada aad u badan oo magaceeda haystay dagaalo badan ay jireen isbaarooyin badan waxaasoo dhan alxamdulilah waa soo maray oo subax walba tawfiiqan ka tago aan bakaara tagi jiray oo bari jiray sida hore u soo sameeyay oo dhadhankii iyo maaragtay taabashadii iyo urintii ayaan laga soo baray. markii la gaaray intaas kadib macallinkayga khayr laa siiyo 98 markii la gaaray ayuu imtixaanka qaadan ku guuleystay. markaas wuxuu yidhi qaybtii labaad oo rugta iqra ku shaqeyn jira markaas. marka wuxuu dhahay rugta iqra ayaan qayb labaad kaaga furaa tawfiiqa joogtid aan maadaama bakaarida oo qaybta tawfiiq ka shaqeey. sidii ayuu macallinkayga xasan maaragtay xasan maxamed aadan oo shiiqayga qiimo badan ahaa ayaa maaragtay sidaas sabab igu noqday inuu maaragtay dhirtaasi xilligaasi i baro. 98 wixii ka dambeeyana anaa toos ugu shaqeeya rugta iqra daawada qoraha kaliya inta anaa la ii yaqaanaa bulshada badanaa ana ii taqaanaa oo asaga qaarkood markay u tagaan xataa oo iqra waatana uu yidhahdo waxay leeyihin maya anaga waxaan rabnaa ninkaan wax arkayni waa isoo wacaa marka wuxuu leeyahay la hadla qofka waa la hadla ninkaas shiiqaygu waaye asaa isoo baray. marka aniga asaga maaragtay macallinkayga waa kuu shaqayn karaya aan dhaha. marka sidaas ayaa rugta iqra isku daawada quraanka inta aan ku abuuray layguna yaqaana axmed. waxaan rabaa inaan ka weydiiyo caqabad intee leeg kala kulanta markay bilaabaysa hawshan caafimaadka markay bilaabaysa wax caqabad ah ama caqabad noocee ah kala kulantay inaad bulshada u sharaxdo. aad mahadsan tahay. horta markaan bilaabaya iyo haddaba caqabad way jirtaa inkastay kala duwan tahay. limaada wax ugu horeysa lagu weydiiya waxaa waaye adina waa arag la-dahay see kuugu suurtagelaya inaad dadka aad daaweysid yaa kula joogo oo hawshaan kuu qabto. ninka aqoonta u lahaa oo hawshaan soo bartay aniga waaye dadka ila joogda aniga baray waaye. marka saasaan wax ku qabtaa. dadka qaarkood waa ku qancayaan oo waxay aaminayaan inay tahay mucjiso gaar oo aniga la siiyey inay tahay laakiin uma arkayaan qofkaan arga inuu wax baran karo oo qon u yeelan karo ma u fahmayo. dad mucjisooyinka waxyaabaha maaragtay oo caadada ka baxsan ayaa badan dadka iska soo arki jireen. marka tii ay moodaan qaarkood qaarna waxay fahmayaan inay hawsha cilmi tahay wax la barta tahay saas. markaan fiiriyo marka barashadeydii waxaa igu dhib badnayd hadda waxaadan adiga maanta aadan hore u aqoonin geed waaye ama waa caleen ama waa miro ama waa maaragtay xididkii waa lagu taabsiyahaa taabashadii inaad ku fahamtaada beri mid kaloo adaa ku iman karo inaad kala fahamtid adi inaad maaragtay u samaysatid maaragtay qaab waa. marka macallinkayga qaabaan ugu sheegay waxaa yidhi aniga waxaan ku fahmi karaa taabasho waa wada caadi urin iyo dhedhemin sidoosan iila gartay geed walba marka saasoo marka intuso oo taabashada ku arko oon ku fahmo dhowr xabo isku inta intuso oo yiraahdo bal kala saar aan carabti ku kala saarayo ama dhadhankii saasaan macarta horta
aan dhibka ugu badan kasoo maray horta kaasi ahayd ilaa markii dambe ee dadka qaarkood aniga yidhaaheen